walaalayaal waxaan doonayaa inaan u jawaabo fursaddan uga faa'iidaysto madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto oo maalin dhaweyd aydun wada ogeydeen in uu yidhi Soomaaliya waxaanu kala macaamilaynaa cid cusub oo aanu soo saaray waa ka wada dhageysaneydeen warkii uu ugu warramo ugu khudbadeeyay dadkiisa inay rabaan inay soo cumaamadaan qof cusub oo ay iyagu wataan oo Kenya ay mas'uul ka tahay oo iyaga u adeega oo ay meesha dhigteen waxayna ogeyn William Ruto iyo dadka la ra'yiga ah iyo dadka fikirkiisa qaba ee dawladaha jaarka qaarkood noqon kara ama ahiba in Soomaaliya ay ka gudubtay Soomaaliduna ka gudubtay waqtigii mas'uul Soomaaliyeed wadan yeelan jiray ku shaqayn jiray fikirka dalka waxa ay marxaati ka wada ahaydeen xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeedna ay beeniyeen damicii guracana ee TPLF 4 sanadood ka hor waxay yiraahdeen magaaladan Muqdisho ah magaaladan Xamar ah beledkan Soomaaliya ah wuxuu baa madaxweyne ka noqon kara cidaasina mabageydo madaxweyne kama noqon karto xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed oo cidii ay u tirinayeen koow ka tahay hormoodna ka tahay waxay yiraahdeen been baad sheegteen qof kasto Soomaali waa muwaadin Soomaaliyeed xaq baan u leeyahay inuu madaxweyne noqdo aragtidii TPLF ee qaldanaydna way beeniyeen soo maaha soo marxaati kama inaa wada ahayn soo xildhibaanada halkan jooga ma ahayn kuwii beeniyay ee yiri Soomaalinimo iyo codkayaga si xor ah inaanu u dhibno ayaanu diyaar u nahay dalkayga waan jeclahay dalkayga waan jeclahay dalkayga waan jeclahay dawlad kastoo ay soo farigelisay walaalayaal way ku khasaari doontaa damacooda guracna waa lumi doonaa ama ha noqoto Kenya ama ha noqoto Ethiopia ama ha noqoto dal kale oo kasta Soomaalidu milkihii sharafkii wadaniyadii iyo Soomaalinimadii ay lahaayeen ayay u holadeen wadadii saxda ahayd baana cagta saareen sunno cusub oo siyaasadeedna waa bilowday waxaan idin sheegayaa sunnaha cusub ee siyaasadeed ee maanta jira hiyiga cusub aragtida u dhaxaysa siyaasiga han kale iyo siyaasiga dan kale danleyda iyo hanleyda waxaan idin sheegayaa tusaale waa baraarugeen xildhibaanadii Soomaaliyeed waxay yiraahdeen aan qiimeeyno banaanka markaynu joogno qofka dadkeenan hagi kara inoo talin kara inoo xukumi kara cadaalad aynu bidayno dalkana hogaamin kara dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa tusaale idinku filan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanadii waa shireen tartan baa dhacay la isma lahayn sida ay wax u dhaceen baa u dhacayaan isbedel baa dhacay madaxweyne lafta gareen wareegii goowaad baa aqlabiyad ku soo baxay mar labaad waxaynu ogeyn galmudug qoorqoor wareegii goowaad buu aqlabiyad ku soo baxay mar saddexaad waxaynu ogeyn Hirshabeelle Ali Gudlaawo wareegii goowaad baa aqlabiyad ku soo baxay marka waa xilligii wareegga koowaad 2020 yaal noo daymo la'aan Soomaaliya hiyigeenu waa in wareeg koowaad oo aan badmadow lahayn aynu ku sii wadnaa continuity-ga iyo horu socodka dalkani uu u baahan yahay in uu gaaro waxaan doonayaa laba shay oo dhaqanka siyaasadda ee ah 4 sanadoodba mar hal ka rogo oo laga saaro hal la bedelo haddana ku kale hal la cumaamato in laga soo guuray maantana loo guuray Soomaalinimo yaa wax ina tari kara yaa wax inoo qaban kara halgeenu gaari karnaa sideebaynu hore ugu socon karnaa taa inagoo ka guulayna Soomaali haddaan nahay waxaynu u baahan nahay in aynu doorasho ka shaqeyno doorashadii lagu heshiiyay waa diyaar gudiyadii waa diyaar doorasho loo dhaqaaqayaa doorasho loo dareerayaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo hunguri kaga jira xilkana in tartan furan oo xor ah uu kaga qayb qaato tartan furan oo xor ah uu ku tartamo